ninkii cali qalfoof ahaa oo ay feedhihii isku buusbuuseen ayaa kaynta dhex gurguranaya. habeenkii markii wakhtigii hurdada ay gaadhay, cabdidhagooli iyo hurdays ma yaqaanaan. siduu habeenkii oo dhan u fikirayay ayuunbuu waagii baryey. markuu waagii baryeyna intuu iska soo yar jimicsaday ayuunbuu dibadda iskaga soo baxay, isaga oo maalintaasi rabay inuu aabbihii u soo adeego. cabdiyo isku buuqsan oo askarigii ka baqanaya, xagga kalaan rabay inuu aabbihii u soo adeego, ayuunbay waddada ku kulmeen saaxiibkii xarago, waxaana uu uga sheekeeyey mushkiladda haysatay inuun xalay seexan. saaxiibkii xaragana wuu ka oggolaaday, wayna israaceen ilaa magaaladii. horaa loo yidhi ninkaa feedha weyn layskuma taago. askarigiis uma jeeste sidii uu feedhaha uga garaacayay cali qalfoof ayuu dhulka ugu tuuray. wakhtiba iskamuu sii lumine, ilaa waa nin gaajoonaye cagaha ayuu wax ka tegey si uu soo doondoono wiilkii yaraa. qalfoofkana ma quusanayaba. cabdi iyo xaraga way israaceen, wayna iskaga beedheen kayntii uu ku noolaa askarigu. ninkan xaragada badan waxaa u dheereed inuu ahaa nin dhul yaqaana. saaxiibkii cabdi wuu badbaadiyey, wuxuuna mariyey waddo kale. ninkii cabdidhagoolena wuu faraxsan yahay. askarigii soomajeeste markuu soo waayay wiilkii yaraa ayuu meel iska istaagay, isaga oo ciil iyo cadho iyo gaajaba iskugu biireen. isagoo kaynta iska dhex socsocda ayuu damiirkiisuna ku lahaa, maxaad u cunaysaa bili'aadanka? horaa loo yidhi ninkaa feedha weyn layskuma taago. ninkii cali qalfoof ahaa oo ay feedhihii isku buusbuuseen ayaa kaynta dhex gurguranaya. laakiinse qalfoof ma quusanayaba. kolbadhan ayuu gurguranayaa. cali dhagoole markuu wiilkiisii ka waayay gurigii ayuu isa soo daayay ilaa iyo kaynta, bal si uu wiilkiisii u soo helo, isaga oo la cunay amba isagoo nool. laakiinse nasiib darro, waxa uu kayntii ugu yimday askarigii soomajeeste oo gaajaysan. inta uu naxay ayuu halkii uu joogay ku qalladay. laakiinse askarigii ayaa si degdega u baraarugay, dabadeetana degdeg ayuu u cararay si uuna uga baxsan sidii wiilkii yaraa uga baxsaday. waxay noqotay nin iyo oradkii, laakiinse nasiib darro odaygii yaraa ayaa markiiba la soo qabtay. dabadeetana waxaa loo diyaargaloobay sidii loo cuni lahaa. askarigii markii uu odaygii soo qabtay ayaa uu farxad odaygii ku ag jeesjeesayaa. waad ku mahadsantahay daawashadaada. ha iloobin inaad channelka subscribe saartid, aad videogana like saartid. Thank you.